wanaagsan akhyaar meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka codka bulshada oo aad bishiiba hal jeer aad kala socotaan mareegaha internetka ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS iyo sidoo kale warbaahinta kale ee bahwada gala ah xalqadan waxa aynu ku dul istaagi doonaa fahamka guud ee isbeddelka cimilada dhaqaalaha Soomaaliya lagu siiyo iyo sidoo kale saameynteeda ayaan dul istaagi doonaa waxaana xalqadan marti uga ah Axmed Cabsiye oo ah suxufi ka faalooda arrimaha isbeddelka cimilada iyo sidoo kale deegaanka dhanka kale Axmed waa aasaasaha warbaahinta Green Media Initiative oo ah warbaahin ka faaloota deegaanka iyo isbeddelka cimilada Axmed ku soo dhawow barnaamijka codka bulshada waa mahadsantahay maxamed ibraahim bulbul adiga iyo SJS iyo ururka saxafiyiinta oo dhan iyo saaxiibka dhamaantii waan salaamaya ay farxad maanta inaan iswaraysanayno iskana waraysanayno mowduuc muhiim ah oo bulshadeena si xooggan runtii u saameynaya si ka badan sida ay dadku ugu baraarugsan yihiin Axmed waa mahadsantahay waxaan marka hore aan ku hormarnaa si fudud yacni maxaa loola jeedaa isbeddelka cimilada Soomaaliyana markii laga hadlaayo isbeddelka cimilada sidee u saameeyay aad u mahadsantahay maxamed ibraahim bulbul isbeddelka cimiladu waa dhibaato weyn oo haysata dhulkii ama koonkii ama gurigeena aan ku nooleen gurigeena waxa jira balaayiin meero oo kale baa jira marka kani waa gurigeena oo meesha aan ku noolnahay dhibaatadiisa wayna saameynaysaa waxa la arkay in tan iyo kacdoonkii warshadaha ay saynisaanadu arkeen in isbeddel uu ku dhacayo dhulka isbeddelka waxa weeyaan in kulaylkiisa uu sare u kacayo dhibaatada isaga dhexdiisa ka taagana ay sidoo kale kordhayso tusaale ahaan meelaha qaarkood waxa la arkay in biyihii labada cirif barafkii fadhiyay ee waqooyi koonfur inuu dhalaalayo maxay ahaatay inuu ku soo siqay xaddiga biyaha ama ay kordhayaan maxay ahaatay tirada ama xaddiga biyuhu ay kordhayaan jasiirado lagu noolaa dadku noolaan qaadanayaan dhinaca kale waxa la arkay kulaylka kordhaya dabcan jasiiradaha saameynaya dhinaca kale waxa la arkay in abaaruhu ay noqonayaan kuwa soo noqnoqdo si xawli soo noqnoqda waxa la arkay in fatahaaduhu ay noqonayaan joogto sidoo kale marka dhibaato weyn oo soo kordhaysa oo la xiriirta deeramaadka ka dhalanaysa ayaa la arkay sidoo kale marka la eegana waxa sababta u ah waxay ahayd sida la ogaaday in qiiq badan ay bini aadamku cirka u sii daayeen tan iyo kacdoonkii warshadaha qiiqaas oo ugu badan carbon badan la sii daayay maxay ahayd methane fara badan la sii daayay F gases iyo kuwa kale oo la mid ah marka qiiqaasi wuxuu aadayaa marka uu bini aadamku sababtoo ah beerahay waxay aadeen maxay ahayd warshado badan inay sameystaan inay shidaal soo saartaan qiiq aad u xaddi badan bay dalal badan sii daayeen si ay hormaraan marka qiiqaasna hawadu aadaya hawadaasuna ku noqonaya mid trap gareeyo qoraxda iyo kulaylkii qoraxda ka imaanay taasoo abuuraysa in oogada dhulka ay noqoto mid tartiib u sii kululaata oo la qiyaasayo in kulaylkeedu uu gaarayo heer aan lagu noolaan karin ama adkaanayso inuu lagu noolaado marka dhibaatadaas waxay saameynaysaa wadamo badan wadan kastana runtii waxa ugu jira maamaha Soomaaliyeed baa nin kasta qumanihiisa qoorta ugu jira dal kasta dhibaato gaar uu ka cabanaya wadamada qaar abaaro joogta ah bay ka cabanayaan kuwa fatahaadu ku soo noqnoqonaya ka cabanayaan waa ogeyd Yurub wixii ka dhacay Ameerikaad ogeyd duufaanada sanadadii ugu dambeysay dhibaatada ay ku haysay dalal kale sida hore soo sheegay barafka dhalaalaya dhibaato ku haya Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu nugul adduunka ee uu saameynayo isbeddelka cimilada oo maxay ahayd heerka nuglaanshaha bulshadoodu aad u sareeyo sidoo kalena heerkii ay wax kaga qaban lahayn ama readiness-ka sidii loo wajahi lahaa dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ka dhalanayana diyaar garowgu aad u hooseeya marka vulnerability-ga ama nuglaanshihi oo sareeya oo aad u sareeya dadka ay nugul yihiin iyo diyaar garowgii waxay u diyaarsanaa bulshadu aad u hooseeya ba iska qabanaya Soomaaliya marka abaar yar haday ku dhufato dadkii biyo la'aan waaye dadkii baad la'aan waaye xoolihii beeraladii wax ma soo saari karaan oo beertoodu waxay ka soo saari karaan mala sababtoo ah roobkaas ku tiirsanaan iyo wabiyadaas marka waxay noqonaysaa in cuntadii adkaato in xoolihii ay meesha ka baxaan oo ay dhintaan in dadkii beeralayda iyo xoolalaydu ay magaalooyinka soo galaan oo halkaas barakacayaal ku noqdaan marka dhibaato weyn ee Soomaaliya ku haysa isbeddelka cimilada 2026 la taagan yahay 6.5 bilyan oo Soomaali
Soomaaliyeed oo waddanka ku nool ayaa wajahaya gaajo iyo biyo yaraan iyo abaar daran sabab la xiriira abaarihii roobkii oo aan muddooyinkii la soo dhaafay si wanaagsan aan u di'in marka wadamada qaarkood waxay u saameynaysaa abaarihii ku soo noqnoqonaya dalalka qaarkood oo Soomaaliya marka la kumtahay roob lama filaan helayaan fatahaado sameeynayo waa ogeyd Europe 2024 waxa ka dhacay Europe wadamo diyaarsanaha in wadamo far badan oo Spain ilaa Ingiriiska ilaa Europe ta dhexe meel kasta inay biyuhu dul mareen oo ay dhibaatooyin wajaheen Mareykanka ogeyd hadda markii ugu dambeysay inay cyclones iyo duufaano xoogan ku dhufteen kuwaasoo trillions dollar ama billion dollar khasaare ah u geystay marka isbedelka cimiladu waa wax saameynaya nolosheenii siday u jirtay isbedelka cimiladu waxa jira dad badan oo inkirsan oo dhahay waxaan way dhici jireen laakiin inta badan saynisyahannada iyo dadka kale ee climate experts waxay leeyihiin way dhici jireen abaaraha waa la arki jiray maaha wax cusub laakiin sida waxa kordhay frequency-ga ay ku dhacayaan soo noqnoqodka heerka soo noqnoqodka baaxadooda fatahaadaha sidoo kale milanka maxay ahaatay barafka iyo daafaha dunida waa si xawli wax kasta u dhacay marka waxaan way dhici jireen laakiin falalkii bini'aadamku geysteen oo ay kamid qiiqan faraha badan ee la sii daayay dhirtiyo la xaalufiyay meelo badan nolosha iyo sida isugu tiirsanayd oo maxay ahaatay oo la baabi'iyay baa waxay keenaysaa in ay dhibaatadan dhacdo markii isbedelka cimilada waa sidaas Soomaaliyana waxay kamid tahay wadamada ugu daran ee ay isbedelka cimilada saameynayo ayna ka dhacayaan musiibooyinka ka dhalanaya isbedelka cimilada sababtoo musiibooyin baa ka dhalanaya aan hadda soo xusin iyadoo adduunka iyo dad kale ay qabaan in Soomaaliya kamid tahay wadamada ugu daran ee sida baan u saameysay isbedelka cimilada haddana qofka Soomaaliga way adag tahay in laga dhaadhiciyo yani isbedelka cimilada waxa inay wax jira yihiin in la qabsan karo way adag tahay su'aal waxa arkaysaa yani qof ku dhahayo Soomaaliya abaara jirto haddana ma fahansano in abaartan xiriir leedahay isbedelka cimilada because waa wax soo noqnoqday soo la laabtay waa xiriirka ka dhaxeeya abaarta isbedelka cimilada qofka Soomaaliga sidee loo sheegi karaa isbedelka cimiladu waxay keenaysaa inuu roobkii yaraado si fudud roobka inkastoo cawaamil badan ay ka qayb qaataan oo bini'aadamku sameeyeen tusaale roobka waxa la yiraahdaa dhirta soo jeeda bini'aadamkii Soomaalida dhirta way jireen waxa la qiyaasaa 2011 ilaa 17 waxa la jiray 8 milyan oo geed baa la jaray marka waxa la kaymaheena la xaalufiyay wax kastoo noloshu ku jirtay baa la baabiyay abaaruhu marka waxay xiriir la leeyihiin waa waxa isbedelka cimilada hoos u dhigay roobka xaddiga roobka ay bini'aadamku heli jireen ama dhulalku ay heli jireen oo dhulku heli jiray baa yaraaday sidoo kalena xaddigii roobku markuu yaraaday dhulkii vegetative-kiisii wuu baaba'ay oo wuu burburay oo roobku maxay tahay dhirtii oo dhan meesha ka baxday waxa meesha ka baxay dhirtu hadii ama roobkii la waayo waxa simbal meesha ka baxay wax soo saarkii oo ay beeralaydu ku tiirsanayeen oo cambihiin heli jirnay qudaartii heli jirnay waxa meesha ka baxay xoolalaydu waxayna ku tiirsaneen xoolalaydeena iyo beeralayda labaduba biyaha roobkay ku tiirsan yihiin oo ay wax ka sugaan maxay ahaatay marka si xawliya xoogan isku saameynayaan abaartan iyo isbedelka cimilada simbalina abaarta hadda soo noqnoqodkeeda waxa tusaale fiican oo isbedelka cimilada iyo abaarta xiriirka ka dhaxeeyo abaartu way dhici jirtay waa sax qofka haduu ku doodo abaartu way dhici jirtay laakiin waxa kordhay heerkay soo noqnoqonaysay marka in la isweydiiyo way dhici jireen waxani laakiin abaarti waxa la yaqaan abaarti 74 dhacday mid dhacday mid kuniisid way tirsanaayeen abaaraha way tirsanaayeen waa la yaqaan xitaa dadka roobka badan iyo biyaha badan way tirsanaayeen abaaraha noocan oo kale ah way tirsanaayeen waa la yaqaan hebel dhashay abaartaas iyo hebel dhalan naqi ka dambeeyay uu dhashay waa la calaamsan jiray laakiin hadda wixii meesha way ka baxeen soo waa inuu dadku isweydiiyaan maxaa abuurooy wax abuurooy simbal wax weeyaan dhibaato kale oo naga sareysa oo aan dabcan anaga abuurin hadii xitaa Soomaalidu ku doodi lahayd dhirta la jaray baa abuuray dhirta la jaray oo xawli bay abuurtay laakiin isbedelka cimilada dalal kale sidoo kale abuuray marka waa waxay saameynaya scientifically u baahan tahay dadka aqoon qof hadda miyi jooga ama beeraley iska caadi oo aan aqoon lahayn in loo sharaxo wax science way adkaanaysaa laakiin dadkaas waxa laga yaabaa inuu qof ka maqlay dhahaya waxan way dhici jireen ilaahay baa keeni jiray waxan horeba oo soo marnay waa laga bixi jiray qofkaasi ka maqlay waxa u baahanaa dad kale wax u sheega marka dadka oo si ay fahmi karaan luqad ay fahmi karaan kula hadlo tirada barakaca dadku soo barakacay magaalada Muqdisho aad ay u badan yihiin waxaan intood badan lagu sheegaa inay ahaayeen dad beeraley ah
dad xoolo dhaqato ahaa saameynta isbeddelka cimilada dadkaas uu ku leeyahay yani inay muqdisho yimaadaan maxay tahay horta simbali waxaa la sheegay hadda daraasadihii ugu dambeeyey horta tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa afar milyan around meelaha Soomaali IDPs inay jiraan si guud Muqdisho meelaha ugu badan ay ka mid tahay waxaa la sheegaa dadka gudaha ku barakacay Soomaaliya 70% ilaa 75% waxay salka ku haysaa barakacoodu musiibooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada oo ay ugu horeysa abaarta soo noqnoqotay qof beeraley ahaa ayaa wabigii ka qalalay wabiga wad ogtahay sanadadii la soo dhaafay si joogto ay u qalalay si ka badan sidii hore sidoo kalena markasta waxa sii kordhisay inta uu maqnaanayo tusaale waagi hore January iyo February uu qalali jiray wabiga laakiin hadda sanadkan wuxuu qalalay December bilowgeedii uu qalalay fogeyd uu qaybo badan marka laga soo bilaabay Jowhar ilaa xagga wabiga Shabeelle qalalay marka qofkii beeraleyda ku tirsanaa wabigiina uu waayay roobkiina madiin waa soo baxaya inkastoo ay dad badan oo gudaha jooga ay u yeerayaan beeraleyda leeyihiin meeshana bush breeze wax ay ka jiraan sidoo kale qofkii xoololeyda xoolihiisii lacday abaarihi la soo dhaafay waxa la sheegay in malaayiin xoolo ay nagaga lumeen qof xoolo ah oo maxay ahayd xoololey 100 ari macnaha hal tiro oo ari ah ama si kala hadii loo 100 neef oo ari haystay ba almost 80 arigiisii baxay laatan buu haystaa wuxuu leeyahay magaalada la aad marka abaar hadii isagiina ku dhacday qofkii xoololeyda ahaa beeraleydiina abaar ku dhacday dadku maxay qabanayaan waxay u baahan yihiin meel ay noloshooda ku badbaadiyaan meel ay ku survive garoobaan waa loo yeeraa sidaan hore u xusay dad u yeeraa qaarkood iyadoo noloshooda stiil deegaanadooda lagu badbaadin karo marka magaalooyinka soo galayaan marka waxa la sheegay 75% inay arrintan saameynayso kaliya ma aha abaar fatahaada jirto qof beeraley oo sanadkan wax tabcada laga yaabaa in beertiisa uu wabigu ka dulmar ama fatahaada ay saameyso kadib sanadkii tacabkiisa waa qasaaray kadib gurmada loo sameeynaa waxa lagu yeeraa magaalada halkaas looga sameeynaa maxay ahayd meelay degaan oo buushasha dabcan noloshooda mustaqbalkooda waxba aan ka bedeli karin sidoo kale khilaafaad badan dad badan oo ay ka soo barakacay colaadahaas laftirkooda salka ku hay isbeddelka cimilada sababtoo ah dadku waxay isku qabsadaan baadkii deegaan yar oo roob yar ka daa laga yaabaa inuu caws yar soo saaro xoololeydii qabaa'ilkii dadkii oo dhan minbay waxa laga yaabaa dadka qaarkood oo ka taga hiiraan iyo ka soke inay tagaan mararka qaarkood haddii waqooyiga fog Somaliland oo roob ka doonay halka tagaan sababtoo ah weligood dhaqankeena kala jirku wuxuu in la isu guuro mararka qaar waxa laga yaabaa qof Somaliland dadka imaada bare tagaan koonfurtan imaadaan ay baladweyne marka dadka waxay yaraay la haystay bixululeedina isugu laabanayaan khilaafaad dhacay resource-kii baa lagu dagaalamay biyaha lagu dagaalamay baadkii baa lagu dagaalamay dagaal baa dhacay kadibna dad badan oo kale halkaas ka barakacay marka tirada ugu badan ee barakacayaasha gudaha ah dadkeena waxay la xiriirtaa isbeddelka cimilada si direct ah 75% oo qiyaasaha ugu dambeeya iyadoo aan ku dare 65% la leeyahay dadkeenu waxay ku tirsan yihiin beeraha iyo xoolaha marka 65% dadkii way ku tiirsanaayeen haddana dadka barakacay 75% arrin isbeddel cimilada la xiriirtay oo barakacayaan waxa kale maxay ahayd muhiimka iyadana in la sheego waxweeyaan sida aan ognahay dhammaan inta soo sheegtay sida يعني Soomaaliya sida la og yahay kama mid ahan wadamada ama dawladaha hawada wasaqeeya haddana isbeddelka cimilada sida soo sheegtay saameyn aad u daran oo ay Soomaaliya ku leeyahay waxa arkaysaa bulshada waa isdagaalayaan sida soo sheegtay waa la isdilayaa waa la barakacayaa xoolihii waa la aanayaan dadkii waa dhimanayaan waxa soo dhanaa taagan dawladda Soomaaliya waxa la sheegaa in dhaqaalo lagu siiyo si waxaan isbeddelka cimilada dadku u saameynta ku yeeshay si gurmad loogu fidiyo ama wax loogu qabto saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada iyadoo dhaqaalahaas dawladdu ay qaadato haddana maxay waxaan u taagan yihiin waa su'aal muhiim ah maxamed horta waa sax Soomaaliya haddaan number ahaan u sheegno kaliya qiiqan la leeyahay isbeddelka cimiladu sababay waxay ku leedahay 0.019 ama eber 9 waa waxa ilaa maxay ahayd 8 jeer ka yar 1% aad u yar marka number aad u yar oo 1% wixii aad uga hooseeyaan horta qiiqan kululeeya adduunka ee bedelay isbeddelka cimilada keenay aan ku leenahay halka marka loo barbardhigo China oo kale ay 30% sii deyso
warshadaheeda waad ogtahay China waa developing country ama developed whatever oo horumaray warshado badan bay leeyihiin wax soo saar badan bay sameeyeen si joogto ah bay dalalka Afrika iyo wadamo badan raw material uga dhoofsadaan wadamadooda ugu soo saaraan qiiq badan bay sii daayaan ilaa la gaaro inaan Beijing magaalooyinkooda waaweyn dadku ay sanka mararka qaar qiiqa ay xirtaan marka 30% la maraa Mareykanka ilaa 12% u maraya wadamada European kana iyagu number la mid ah maraya marka dadka ugu badan Soomaaliya kaliya ma aha Afrika oo dhan waxay ku leedahay 4% ay ku leedahay xaqiiqad maxay ahayd isbedelka cimilada keena marka horta arrintaas halkaas waxa ku jirto dhibaatadan anaga maanaan abuurin dalal kale horumaray baa abuuray lacagta marka finance-ga aanu nimaadno climate finance-ga sideed wax weeyaan waa wax lagu heshiiyay wadamada ay ku heshiiyeen isbedelka cimilada jira isbedelka cimilada dhibaato nagu haya nolosheenu dhibaato ku haya marka wadamada isku yimaadeen la dhahay marka ay ku doodeen wadamada aan horumarin ee Soomaaliya kamid ah Afrikaan kamid least developed countries la dhaho idinka abuuray idinka horumaray idinka ka faa'iideystay qiiqan idinka qiiqan sii daayay sidaas daraadeed waa inaad bixisaan lacagaha isbedelka cimilada wax looga qabanayo marka heshiis weeyaan climate finance-gu waa lacag ay wadamada horumaray iyo kuwa soo horumaraya ku soo xiga ay siinayaan dalalka laga tagay ama horumarka laga dheereeyay dhinaca horumarka underdeveloped ama least developed countries ka ay siinayaan climate finance marka arrin saasa mana ahan arrin tuugsi ah waa arrin cadaalad ah la xiriirto maxay tahay xaq aad leedahay sababtoo dhibaato ku haysata roobkii ma helaysid ubiyadaadi way qalalayaan xoolahaaga way dhamaanayaan dhulkaagii intuu lumiyay dhirtiiba maxay tahay bacaad daran oo ka kacaya oo magaalooyinba bacaadkii qaadanaya marka dhibaato maadaama ay kugu dhacdo wadamo kalena iyagoo caadi oo jasiirada ah ay biyihii liqayaan dadka abuura waa in lacagta bixiyaan oo ay caawiyaan dadkan marka saddex qaab oo lagu heshiiyay in loo caawiyo oo climate finance ay ku tiirsan tahay ama kuwa ka sii badan way jiri karaan baa jira marka climate finance-ga si guud dalalkaas ku bixiya laakiin mushkiladu waxay tahay Afrika oo dhan baa caqabad ku ah horta marka koowaad in access garayso ama finance climate finance access-ka mushkilaha ka jirto ma la xaqiijin karo ma la gaari karo hadda shirkii Azerbaijan ka dhacay dunida markay isugu timid waxay dejinayeen hadaf cusub oo la xiriira climate finance-ga meeqay la ekaanaysa lacagta dalalka horumaray ay siinayaan kuwa laga dheereeyay si ay isbedelka cimilada ula qabsadaan wax uga qabtaan u dhimaan iyaga laftirkooda qiiqa waxay magdhow ay ugu noqoto meeqa la siinaya marka wadamada laga dheereeyay waxay doonayeen in 1.3 trilyan meelaha la gaarsiiyo sanadkii lacagta la siinaya marka waa la isqa qabsaday yoolka waxa la rajaynayaa inuu fiicnaado laakiin 300 bilyan uu noqdo lacagtaas oo aad maxay ahayd u hooseysay runtii marka laguma qancin hadana 3 bilyan 300 bilyan ma ahan lacag la filayo in laga helo wadamadan horumaray sababtoo ah awal 100 bilyan ay ahayd ba 2009 ilaa 2021 la helay la qorsheeyay in la helo hal sano 100 bilyan la dhaafay hal sano kaliya inta kale waa laga hoos maray marka horta access-ku wuu liitaa wadamadan balanqaadkooda si dhaba uga ma soo baxayaan climate finance-ga intii yareeyay climate finance-ga la helay hay'aduhu ay maamulayeen lama gaari karo dawladihii ma gaari karaan sidoo kale ma gaari karaan ama si fiican uma heli karaan ururadii private sectors ku ahayd shirkadaha wadanka iyo wadamada dhan inay helaan ma heli karaan marka mushkilada marka ka jirta laakiin lacag weyn yimaadaan tusaale 2024 waxa Soomaaliya loo ansixiyay 100 milyan oo green climate fund hay'adda ugu weyn oo hadda climate finance-ga isticmaashay ilaa hadda 20 bilyan kor u dhaafayo 100 milyan ee Soomaaliya markii ugu horeysay si toos ah tiri waa u siinaya si gaar ah iyadoo aan soo marsiinay wadamo kale ama wax ugu dareen region ama gobol cid kale u siinay so lacagti waa la helay inkastoo ay finally noqotay inay maamuli doonaan hay'adahan UN-ka iyo meelahan ay soo marmari doonto oo caqabadeeda leedahay haddana dhibaato kala jirto ah climate management article aan qornay green media dadku ka heli karaan climate finance-ga intii la helay oo lacag fiican ah runtii wax lagu qaban karay ma gaarayso bulshadii u baahneed bulshadii dhibaataysnayn ma gaarayso sababtoo ah wadanka transparency ma jiro musuqu wuu sareeyaa nidaamka wali maxay ahaatay kartida iyo aqoonta iyo maxay ahaatay daacadnimada dadka xilalka haya iyo xitaa capacity-goodii ma jiro wuu lunsan yahay dabagal badan lama sameeynayo mashruuca laftirkiisa la soo qaataa kuma salaysana baahida dhabta ah ee jirto tusaalahaan hadda mudug oo kale waa gobol aan report ka qornay isaga laftirkiisa waa gobol u bacaad liqayo hadda oo magaxeebihiisa oo dhan from ka bilow hobyo meel ka sokaysa ilaa iyo nugaal وبعد درسنا هالكاس أردن ومقالين كردن هذا مقالين كل مقال ده هو اللي جوري بعد كله جوري إنه ده وسامين ويا قيبة كم ده هبيو آسي بط بو آسي
عندي باتس يدو جرت هذا ما أركيسي gobolka shabeellada hoose magaalo ka mid ah sida waxaa ka mid ah شلمبودي هالكن مشكلة وين أهيدي أنا واجي هورا دولدو فيري دولدي هورا وحبي قبضتي وحي قلتي من النظام إنشيتيف بعد علن حالة كانت درب بيرت لكن ماشان يدو العقل هي اللي كره من الهادين كره حتى إلا هذا لو مر بوزير بوقدين دبعتدين وتاجنت هدي حتى على السهل أنا الريالتي وحيت هاي إن أنا العقد أي جاري مركب مشكلة وين أجر waxaan rabnaa inaan macluumaad kooban naga siiyeysiis lacagtan intee ku baxdaa haddii ay isdad gaareen waxaan aragnaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda deegaanka iyo hay'adaha kale ee arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada qusaysa iyo dowladda iyadoo shirar la qabanayo iyo warbixino iyadoo la soo saarayo sidee marka loo xaqiijin karaa dhaqaalahan ama deeqahan inay si toos ah u gaari karaan dadka koowaad ay saameysay isbeddelka cimilada